haddee wada shaqayn timaado khilaaf ma jiraayo waxaan la tartamaynaa caalamka marka intiisa kale yaan la tartamaynaa oo aan hubo inaad og tihiin hadda inaan ka harnay muddo 30 sano inaan ka harnay wax badan lagama horeeyo maxaa yeelay Soomaali baan nahay dad firfircoon baan nahay dad isleh baan nahay dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay dad aqoon badan aqoon leh baan nahay dad islaam nahay dad qabla nahay muddo yar yaan ku soo noqon karnaa muddo kooban yaan ku soo noqon karnaa caalamku waa la kala hormaraa haddii hadda aan 20 kale ku darno waana laga tagayaa si aada yaan looga tagayaa aan ka daba tagi karin haddii laga tagana waa lagu gumeynaya dhaqaalaha la isku gumeystaa xoogga ciidanka la isku gumeystaa dowladnimada la isku gumeystaa deganaanshaha siyaasadda la isku gumeystaa sida hadda aan nahay wax qurxoon maaha aniga soo madaxweynihiin maaha wax qurxoon maaha markaan madaxis aragno oo hadda la og yahay dalka inuu saan u qaybsan yahay oo dhibkan u jiro iyo nin dadkiisii midaysan yihiin dhaqaalihiisii cirka u marayo dowladiisa u shaqayso dakhligiisa u badan yahay xiriirka uu leeyahay caalamka lagu ixtiraamo iyo aniga isku meel ma istaagi karno macnaheedu hoos baa lagu fiirin waxaan ahay waxaad tihiin haddaad wanaagsan tihiin anna waa wanaagsana waa intaas weey